waxaa maanta halkan lagaga hadlay shirkan usbuuclaha ah ee dhaqaalaha lagaga hadlo ee uu daadihiyo ra'iisul wasaaruhu waxaa maanta lagaga hadlay aadna loogu dheeraaday shirka soo socda ee la yiraahdo shirka guga ama spring meeting la yiraahdo ee ka dhici doona Washington DC shirkaas oo ay soo qaban qaabiyaan banka adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ay soo qaban qaabiyaan World Bank iyo IMF ka qolooyinka la yiraahdo shirkaas oo shirkii weynaayay labada institution laakiin ay ku jirto wax la yiri round table Soomaalida loo sameeyo oo bariyahan u dambeysay labadii sano ee dambeysay la sameeyay sanadkii hore la sameeyay kana la sameeyo waxa lagaga wada hadlayaa markaa waxa weeye arrintii deyn cafiskii ee aan ku jiray oo dhammaad ku soo dhow arrintii gabagabo ku soo dhow ayaa la doonayaa in laga wada hadlo waxa maanta markaa laga sheekaysanayay waxyaalihii la inooga baahnaa mid walba halkeen taaganahay yoolalkii iyo shuruudihii la inaga filayay mid walba halkeen taaganahay bishii maanta waa 18 12 maalmood baa kale ama 13 maalmood markaa ku darto in bishu 31 halkeen mid walba maraysa maanta lagu wada hadlay weli ma dhammaan bishii mana oran karno wax walba aan dhamaynay ma oran karno oo de waa gacan calool ku jirta weeye hase ahaatee waxaan ku ballan qaadnay una sheegnay wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha inay arrintaasi gabagabo ku dhowdahay waxay gabagabo ugu dhowdahay dadka Soomaaliyeed ganacsatada iyo dadka kale ee ka shaqeeya wasiirada waa arrin laga soo shaqeeyay oo laga wada shaqeeyay oo maalin walba wasiir waliba inta kaga soo aadan ka shaqeeyay marka halkan anagu waxaan bixinay war baan bixinay wasiiradii kale ee ka soo shaqeeyay war bay bixiyeen waxaan meesha ka tagnay marka anagoo isla garanay waxaan doonaynaa inaan qabano 12 maalmood ee nagu soo socda ama 13 maalmood shirkaasna marka ay isugu tagi doonaa shirka waxa lagu qaadaa dhigi doona adduunka isugu yimaado waxa la waxa deeri nagu leh ayaa isugu imanaya waxay ka hadlayaan waxay dhageysanayaan IMF-ka iyo World Bank-ka iyo EU-da iyo qolooyinka aad inoo tabataabiya inoo caawiya ayay aad u dhageysan doonaan marka waxay qolooyinkaas yiraahdaan ayaa deyn cafishayaashu ama dadka deynta nagu leeyahay ay wax ku qaadan doonaan waxaan filaynaa waxa weeye in wax wanaagsan ka soo bixi doonaan arrinta shaqo badan baa gashay cid walba shaqo ka gashay marka waxaan aad ugu faraxsanahay insha Allah taala in wax wanaagsan ka iman doonaan waxaan doonaynaa waxa deynta inaga cafiyo in dhaqaalaha adduunka la inoo furo in lacag badan waddankan u furaato waxa laakiin xaqiiqadu tahay waxa weeye nidaamka lagu socdo ee dawliga ee dawlad wanaagga la yiraahdo ama good governance waa la wadi doonaa haddii xataa la inaga daayo deynta waxay noqon doontaa wax soconaya laana dadkii deynta inaga daayo waxay doonayaan dadkeenu hore u maro oo garanaysa aan meel gaadhno marka shir wanaagsan buu ahaa wax wanaagsan baana ka soo bixi doona haddii la yiraahdo dhowr jeer oo kalena waa shiri doonaa haddii la yiraahdo waana dadka la socodsiin doonaa laba fariimood baan gudbinaynaa mid dadka Soomaaliyeed baa loo gudbinayaa midna cidii waxay nagu la gudbinayaa dadka Soomaaliyeed waxa loo gudbinayaa waxa weeye dalkeena dhibaato weyn baa soo martay maanta laakiin nasiib wanaag waxa ah inaan meel ku soo wada dhacnay inaan meel ku wada socono in hiigsigu mid yahay in shaqaale iyo dawlad iyo shacab iyo muxuu ahaa ganacsato ay meel ku wada socdaan waxa markaa fariintu tahay waxa weeye qof waliba wixii kaga soo hagaaga cashuuraha iyo waxyaalaha dawladda la ururiyo fariintu waxa weeyaan qof waliba intiisa iska bixiyo annagana mas'uuliyadda aan saaranay cisho walba weydiinaysaan aan u baahanay in ka jawaabno waxa weeye lacagaha la qaadayo sidii loo maamulay habkii loo maamulay iyo meesha ku baxday fariinta Soomaalidu waa taawil qolooyinka kale lacagaha inoo leh fariintan farayna waxa weeye goor walba afarna waxa weeye contract agreement baan saxanay heshiis baan saxanay Soomaaliya waxa qabtaa la yiri annaguna waxaan qabanayna baa la yiri annagu 11 waxaan tusi doonaa wixii loo baahnaa oo dhan qaban idinkana markaa waxa la idinka baahan yahay in dhinaciina ka soo baxdaan ayagana faraynaa waa waxaan mar walba isku dhaahno de kulliyo qofka lacag kugu leeyahay waad ku qasban tahay wixii loo baahan yahay inaad qabato waad ku qasban tahay qasabku ma lihid inuu lacagta ka daayo oo haddana hadhow halkaas ka mari karaa laakiin adduunka waxa ka dhaxeeya qaanuun ka dhaxeeya waxa weeye waxa aadna qabo ana waxa aan qabto gentleman's agreement waxa la yiraahdo waa ka dhaxeeya
waxaan filaynaa waxa weeye haddaan wax iyaga qabanno waana qabanay inay iyaguna tooda qaban doonaan oo deynta inaga dayn doonaan sida adduunyada kale loo caawiyo loo maalgeliyay inay noo maalgelin doonaan annaguna waxay xagga iyaga aan hore uga sii tallaabsan doono